halkan waa Maracadda Show. Ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon. Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow daawada qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan guushii sirdoonka Masar. qaybtii hore waxay inoo joogtay markii ay gacantii ay ku dhigtay Mr. Marina walaxdii ay doonaysay ee ahayd waxyaabihii holca ee baadigoobka ay ugu jireen sirdoonkii dalka Masaarida. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa Marina isla markii waxa ay jabisay dhaladii waxaana ay ka soo dhex saartay kiis yar oo si dhowrsan loo xiray gudihiisana ay ku jirto in yar oo ka mid ah waxyaabihii ay aadka u baadigoobayeen sirdoonkii Masaarida. markii dambena waxa ay ka fikirtay qorshihii ugu muhiimsanaa oo ku aadan in iyada ay walaxdaasi ula duusho magaalada Qaahira isla markaana ay u geyso sirdoonkii Masaarida. walaxdaasi ayaa sirdoonkii Masaarida waxa ay gacanta ay ku dhigeen muddo badan kadib markii ay in badan ay fakar ay isu keeneen. waxaana sirdoonkii Masaarida walaxdaasi ay ku geeyeen magaalada Qaahira kadib markii ay isku dayeen in ay webiga ay dooni ay ku marsiyaan. in badan sirdoonkii Masaarida waxay isku dayeen in ay ka shaqeeyaan hanaan ay walaxdaasi ay ku gaarsiin karaan magaalada Qaahira ee dalka Masar si halkaasi baaritaano loogu sameeyo. dadaalada ugu badanna waxaa lagu bixiyay qaabkii dhulka loo marsiin lahaa walaxdaasi. inkastoo Masar dowlado badan ee xuduud ay wadaagaan haddana dhanka dhulka ayaa la isku dayay in walaxdaasi la marsiiyo. waxay telefoonkii kula xiriirtay sargaalkii ugu sareeyay hay'adda sirdoonka ee Masar iyada oo ku wargelisay in iminka ay tahay mid gudatay waajibaadkeedii shaqo gabagabadiina la joogo xilligii la guran lahaa miraha beerta ka soo baxay. waad ku mahadsan tahay dadaalkii badan aad samaysay. waxaan kaaga mahadcelinaynaa dadaal walba oo aad u gashay juhdi walba oo aad ku bixisay sidii arrintan aan ugu guuleysan lahayn. ka waran haddii gacanka Siinaay aad soo marsiiso oo aad dhankaasi ka soo gelisa magaalada sababtoo ah halkaasi way nagu adkaan doontaa haddii dhanka diyaaradda aan adeegsano ama ka waran haddii aad ka soo gudbiso dhanka xuduudda ee dhulka ee waqooyi bariyan Israa'iil ku teedsannahay. sidaasi waxaa yiri sargaalkii sare ee ka tirsanaa hay'adda sirdoonka ee dalka Masar waxaana dhagaheeda ku dhacaya Mrs. Marina hadalladaasi. cabsida ay qabto waxay ahayd in walaxdaasi iyada oo la wareegaysa ay gacanta ay ku dhigaan ciidamada ammaanka isla markaana la ogaado in ay ka soo qaadeen dhanka iyo warshadii muddada badan la ilaalinayay. ugu dambeyntii waxay ku guuleysatay inay geyso magaalada Qaahira ee dalka Masar. maxaa kadib dhacay? markii magaalada Qaahira ee dalka Masar ay geysay waxaa lagu sameeyay tijaabooyin qarsoon waxaana lagu suubiyay geesaha webiga Niil meelo ka mid ah oo waagaasi aan la deganeyn. taasina waxaa lagu ogaaday in 90% lagu baabi'i karayo haddii la isku dayo in kanaalkaasi lagu gubana gabi ahaanba ay gubi karto walaxdaasi. waxaa lama huraan noqotay in la helo jidkii looga hortegayo in walaxdaasi kanaalka aysan soo gaarin. waa mar kale iyo fikrad kale iyo tashiyo kale oo loo baahan yahay in laga fakaro hanaanka walaxdaasi looga hortegi karo maadaama hadda la ogaaday walaxdaasi iyo waxay tahay. markii Maluwiska sidii nin waalan uu u raadinayo Marina oo jaan iyo cirib meel ay dhigtay uu waayay balse ay uga tagtay waraaq ay ku leedahay niyadda ayaa isiin weysay inaan halis geliyo noloshaada sidaas daraadeed waxaan go'aansaday inaan burburiyo walaxdii yareed noloshaadana aan sidaasi aan uga maqnaado. intaasi kadib markii warqadaasi u akhristay waxaa ku dhashay walaac iyo walbahaar hor leh iyada uma aysan muujin in ujeedadii ay ka lahayd ay gaartay oo waxay u sheegtay in niyadda oo kaliya inay siin weyday in noloshiisa ay halis ay geliso. waxaana si aysan dareen kale iyo shaki badan uusan u gelin ay samaysay inay u sii sheegtay in kaliya ay doonayso in walaxdaasi yar ay burburiso maadaama ay tahay mid halis gelin karaysa noloshiisa haddii laga warhelo. hogaankii siyaasadda ee ciidamada dalka Masarna waxay dejiyeen qorshe ay uga hortagayaan walaxdaasi musiibada ah ee aadka halista u keenayay. qorshayaashii la dejiyay waxaa ka mid ah in gabi ahaanba in ka hor inta aysan ciidamada Israa'iiliyiinta aysan goobta imaanin lagu daadiyo ciidamo badan oo Masaari ah. hogaankii ciidamada Masaaridana waxay sheegeen in qorshahaasi uu yahay mid lama huraan ah isla markaana loo baahan yahay in goobta looga sii hortago ciidamada Israa'iiliyiinta ee doonaya in goobta ay ku xiraan walaxdaasi holcaya. saameyn xooggan ayay yeelan lahayd haddii aanan ciidamada Israa'iiliyiinta aysan qorshahaasi sameynin isla markaana aysan gacanta ku dhigan walaxdaasi holcaysa. intaasi kadibna Mrs. Marina markii ay ku guuleysatay soo helidda waxyaabihii aadkay u baadigoobayeen sirdoonkii Masaarida waa la abaalmariyay.
waxaana lagu abaalmariyey in la dallacsiiyo islamarkaana loo bedelo goobo kale oo sirdoonka masaarida ay ku xoogganaayeen. xilligaasi sirdoonkii masaarida aad ayay u xoogganaayeen, waxaana ay ahaayeen kuwo heli jiray macluumaadka ugu badan ee dhanka sirdoonka, waxaanay u babaacdhigi jireen hay-ado badan oo caalamka ah oo arrimaha sirdoonka ka shaqeeya. hay-adda sirdoonka ee masaarida waa mid xoogga saarta helidda xogaha macluumaadka la xiriira ammaanka gudaha ee dalkaasi, sidoo kalena waxay ka shaqaysaa helidda macluumaadka dhanka dibadda ah. waxay la dagaalantaa waxay ugu yeereen kooxaha argagixisada. hay-adda sirdoonka ee masaarida waxaa magaceeda loo soo gaabiyaa GIS oo micnaheedu uu yahay General Intelligence Service. waxay ka shaqaysaa muqaabaraadka ama macluumaadka la xiriira arrimaha gudaha. xarunteeda ugu weyn waxa ay ku taallaa magaalada qaahire ee dalka masar. waxaa la sameeyey sanadkii 1954, waxaana ay tahay mid maamulkeedu uu yahay mid nidaamka dowladda hoos yimaada. mas-uuliyiintii xilalka ka soo qabtay waxaa ka mid a cabaas kaamil oo agaasimo ka soo noqday. sidoo kalena waxa ay hoos imaataa madaxweynaha ama mas-uulka ugu sarreeya madaxtooyada dalkaasi masar. marka taariikhaha laga hadlayana waxa ay qayb ka qaadatay dadaaladii ku aadaneyd muqaabaraadka iyo macluumaadka ay ka helaysa arrimaha gudaha iyo dibadda. go-aankii lagu dhisay hay-adda sirdoonka ee dalka masar waxaa iska lahaa jamaal cabdinaasir sanadkii 1954, waxaana taliyo looga dhigay zakariya muxyidiin. waxa ay muhiim u ahayd aasaasidda dalkaasi masar maadaama xilligaasi ay jireen dagaalo badan. markii hore magaceeda waxaa loo soo gaabin jiray GID oo ahay General Intelligence Directorate, laakiin markii dambe waxaa loo bedelay GIS oo ah General Intelligence Service. waxay ka mid tahay hay-adaha ugu awooda badan ee dhanka sirdoonka, kuwaas oo wax ka qabta arrimaha gudaha iyo dibadda. xilalka dadkii ugu horreeyay ee kasoo qabtayna waxaa ka mid ahaa zakariya muxyidiin. waxauu ahaa ruuxii ugu horreeyey agaasimo ka noqday hay-addaasi sanadkii 1954 ilaa 56 ilaa 57 cali sabri ayaa mas-uul ka ahaa. 57 ilaa 67 saalax naasir oo muddo 10 sano ah maamulayay hay-adda. amiin xuweydi 1967 ilaa 70 ayuu maamulayay. maxamed xaafis ismaaciil ilaa sanadkii 1970 ayuu si kumeel gaara u hayay. axmed kaamil 1970 ayuu isna bilooyin kooban ka hayay. kariim cabdiraxmaan al laythi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda sirdoonka ee dalka masar sanadkii 1970 ilaa 73. axmed ismaaciil cali 73 ilaa 74. axmed cabdisalaam towfiiq 74 ilaa 75 ayuu maamulayay. kamaal xasan cali 75 ilaa 78. maxamed saciid almahdi waxa uu xilka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dalkaasi masar uu qabtay 78 ilaa 81. maxamed fu'aad nasar 81 ilaa 83. maxamed rafiil jabriil 83 ilaa 86. amiin numeer 86 ilaa 89. cumar nagmi 89 ilaa 91. nuur caydiin afiifi 1991 ilaa 93 ayuu maamulayay. cumar suleymaan 93 ilaa 2011. muraad muwaafi 2011 ilaa 2012. maxamed raafad shahayti 2012 ilaa 2013. maxamed fariid 2013 ilaa 2014. khaalid fawzi 2014 ilaa 2018. laga soo bilaabo 2018 ilaa iminkana waxaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dalkaasi masar mas-uul ka ah cabaas kaamil. halkaa ayaan kusoo gabagabaynayaa macluumaadkii ku saabsanaa guushii hay-adda sirdoonka ee dalkaasi masar. waxaan filayaa inaad macluumaadyo aad ka ogaateen hay-adaha muqaabaraadka adduunka, gaar ahaana hay-adda sirdoonka ee dalka masar. waxaan u mahad celinayaa qayb ka mid a warbixintani waxaa tarjumay suldaan cali americo. waan kaga mahad celinayaa la socoshada qaybaha kala duwan ee macluumaadyadaan halkan kusoo gudbiyo. maxay ahayd waxyaabihii kuuga xiisaha badnaa intaad dhegaysanaysay taxanahani kooban? maxayse tahay qaybtii kusoo jiidatay? qaybta hoose aragtidaada inoogu reeb. macluumaadka mid lamid intaa ku kulmi doona. nabadgelyo.